Baryadan Sharib waa caalim dhanka daatada ku takhasusay in muddaha iyo ku taamaya oo uu doonay inuu mar uun ay u suurta gasho uu kireysto tabeelo meel wadaha ay dadku adeegsadaan ku yaalay si loogu dhajiyo xayeysiinta uu rabo. Ugu dambeyn uu gaaro yoolkiisa inuu maalin maalmaha ka mid ah helo jacayl laba. Bishii Juun ayay u suurta gashay inuu iibsado laba tabeelo oo mid lagu dhajiyo wadada ay marayaan gawaarida xawaaraha ku socota ee gobolka Utah, halka dadka wadada maraya ay ku dhiiranayaan inay la kulmaan oo ay ballan la yeeshaan. Dabcan waa qofkii daneynaya oo tabeeluhu soo jiito. Ogeysiiska ku qoran boorka waa mid aan ka badbadis ahayn marka lala barbardhigo tabeella uu bishii May magaalada Salt Lake uu ku soo dhajiyay shakhsi milyaneer ah oo calafdoon ah oo loo arkayay in wax ku qoran ay ka badbadis ahaayeen. Wiilka dhalinyarada ah ayaa falcelinada bulshada ka soo gaara aad ay u farxad gelisay. Waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeysta wax uu doonayo oo qora waa inuu helo jacayl laba ah oo noloshiisa inta ka dhiman la qaybsata. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa astaamihiisa waxaa ka mid inuu yahay caalim dhanka daatada ku takhasusay. Kataaradda muusikada aad ayuu u yaqaanaa. Wuxuu jecel yahay orodkii akhriska, sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu dhageysto muusikada klaasikada ah. Laakiin arrintan kama dhigna inuu yahay qof dhammaystiran. Isbuucii maalin dhammaystiran ayaa la arkin oo wuxuu u jilba xirtaa daawashada musalsal uu jecel yahay oo la yiraahdo Lord of the Rings. Waxa uu sheegay in saaxiibtiisa mustaqbalka uu ka casuumi doono markii ay rabto, laakiin aanay ku qasbanayn inay la daawato. Wiilka dhalinyarada ah ayaa tijaabooyin hore u soo maray, laakiin qaarkood way ka fashilmeen maadaama astaamihii uu raba ay iskeeni waayeen iyo kuwii lamaantiisa ku arkay. Marka laga wareystay boorarkiisa waxa uu sheegay, markii hore waxaan weystay in dadka ay ku qosli doonaan boor oo ay iska agmari doonaan iyagoo wax dan iyo heelo aan ka gelin, laakiin dhab ahaan sidii aan rabay ay wax walba u socdaan.